بسم الله الرحمن الرحيم. صباح نما أربعة سجالك بشا جولاي سنة كلا بكون لباتن يشن أو كبهجن أفر يتمنك بشا محرم سنة كون أفر بقول فرتن يتضبع تاريخ ذي هجرية كل سوى هذا مركله يبرامج كي حرشة ورارك قضبض أن إذا كوجه هنا وحا كمدا باكستان oo dalka kaliya ee muslima ee haysta hub nuclear oo ka hadlay mu'aamarad iyo qatar lagu yahay hubkiisa haddaba yaa laga cabsi qabaa inay waxyeeleeyaan ama burburiyaan nuclearka Pakistan xog xasaasi ah ayaan idinkaga haynaa amuurtan maxaa ka soo baxay kulankii labaad ee xalay dhex maray Trump iyo Netanyahu maxayse yihiin qodobada ugu adag ee ay isku afgaran waayeen labada nin ee ku aadan xabad joojinta dagaalka Gaza warbixin faahfaahsan ayaan idinkaga haynaa Hamas oo si cad u sheegtay in iska caabinta Falastiiniyiintu ay yihiin cidda go'aaminaysa shuruudaha heshiiska xabad joojinta balse Israa'iil aysan ahayn maadaama Netanyahu uu ku guuleysan waayay hadafyadiisii dagaalka wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan sidoo kale barnaamijka idinkuga haynaa tirada dadka ku dhintay fatahaadaha ku dhuftay gobolka Texas oo gaartay 110 qof iyadoo mas'uuliyiinta gobolkaasi ee dalka Mareykanku ay baadi goobayaan dad aad u far badan raq iyo ruux Mareykanka oo Israa'iil u dhisay xarumo iyo saldhigyo ciidan oo ay ku baxayso 100 milyan oo dollarka Mareykanka dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada markala daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa dalka Pakistan waa waddanka kaliya ee muslimka ee haysta hubka nuclearka laakiin tan iyo markii dagaalka Iran oo dhacay iyo Israa'iil dhanka Israa'iil waxa ka soo yeeray hadallo aan adag iyo xiisad iyo kicin lidi ku ah dalka Pakistan oo la leeyahay Iran kadib Pakistan ayaa noo xigta Pakistan hubkeeda nuclear-kana qatar ayuu ku yahay jiritaanka Israa'iil waxa intaasi dheer colaadda u dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan dagaalkii dhex maray bishii May Hindiya waxa islahayd Pakistan oo muqoorin kartaa inkastoo labada waddan ay ku hubeysan yihiin hubka nuclear-ka haddaba arrintan ayaa waxa ka hadlay afayeenka militariga ee dalkaasi Pakistan haddaba aynu eegno warbixin amurahan ay ku aadan oo saacadii ugu dambeeyay wakaaladaha wararka iyo warbaahintu ay faafinayso iyadoo xiisada gobolka ay kor u sii kacayso isla markaasna ay muuqato faragelin shisheeye oo gudaha Pakistan ka socota afayeenka ciidamada Pakistan General Ahmed Sharif Chowdhury ayaa si cad waxa uga hadlay shirqool nidaamsan oo Hindi ay wado si loo wiiqo amniga dalka iyadoo lagu taageerayo jabhadaha gooni-goosadka iyo weerar kalena ciidamada iyo bartilmaameedyada Pakistan General Ahmed ayaa carabka ku adkeeyay in barnaamijka nuclear-ka Pakistan uu yahay mid si buuxda ammaan ah oo aan la taaban karin isla markaasna si adag loo difaacay xitaa wuxuu yiri haddii ay isku daydo Israa'iil ma awood inay wax yeesho barnaamijkan nuclear-ka waxa uu muujiyay kalsoonida Pakistan ee ku aadan awoodeeda dhanka difaaca ee qaranka Chowdhury waxa sidoo kale si kalsooni leh u sheegay in awoodda nuclear-ka Pakistan aysan cidna taaban karin iyadoo dhammaan xaaladaha suurtagalka ah lagu xisaabtamay isla markaas la diyaariyay qorshayaal kahortaga iyo ciqaab military iyo waliba kuwa sirdoon afayeenka ciidanka Pakistan wuxuu faahfaahiyay arrimo xasaasi ah oo isugu jira difaaca dalka amniga gudaha weerarada Hindiya lagu eedeynayo iyo mowqifka Pakistan ee ku aadan xiisada Iran iyo Israa'iil hadaladan ka soo yeeray Pakistan ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii ay soo baxeen
warar dhanka iyo Israa'iil laga helayo oo sheegaya in haddii Iiraan laga guulaysto Pakistan ay noqon doonto bartilmaameedka xiga maadaama Islaamabad ay tahay dowladda kaliya ee muslimka ee ku hubaysan nuclear. xaaladda gobolka ayaa ah mid kacsan iyadoo dagaalka u dhaxeeya Iiraan iyo Israa'iil ee dhawaan dhacay Pakistan ay muujisay taageerada dhanka siyaasadda iyo tan dhanka diblomaasiyadda ay u hayso Teheraan iyadoo ku tilmaamtay weerar kasta oo lagu qaado dal Islaam ah inuu qatar ku yahay xasiloonida gobolka. Pakistan marka warkeeda waa cadiya waxay leedahay anaga nuclear-keena cid aan uga cabsi qabin ma jirto. waxaa sidoo kale xoogaysanaya iskaashiga u dhaxeeya Hindiya iyo Israa'iil. dhawaan afayeenka militariga dalkaasi Hindiya waxay ku eedeysay Pakistan inay adeegsanaysay diyaaradaha drone-iska ee Turkiga oo farsameeyo. dabcan wayna ka warqabnaa madaxweynaha Turkiga Erdogan isaga qudhiis inuu taageeray dhanka siyaasadda ayaan ula jeedaa Pakistan markii dagaalku dhex maray Hindiya iyo Pakistan. marka xaalad adag ayaa jira wixii ku soo kordhay wararkaasi waynu arki doonaa. waa hagaag xagga Mareykanka aynu qoraansan halkaasi oo lagu soo waramayo inay korortay tirada dadka ku dhintay daadadkii iyo duufaanadii ka dhacay gobolka Texas. tirada ayaa imika waxay maraysaa 110 qof fatahaadihii dhacay intii lagu jiray dabaaldegii 4 Juulaay ee maalinta xornimada waddanka Mareykanka. waxaana lagu soo waramayaa in weli la baadi goobayo dad maqan raq iyo ruux. deegaanka Keer oo kaliya ayaa waxaa laga diiwaangeliyey dhimashada 87 qof kuwaasoo ay ka mid yihiin 27 caruur iyo qof shaqaalaha rayidka ah oo ka tirsan beer loo tamashalo tago oo ku taal webiga Guadalupe. goobtaasi waxaa u joogay fasax xilliga dabaaldega dad lagu qiyaasay 750 qof iyadoo 10 gobdhood iyo hal qof oo shaqaalaha weli la la'yahay. Colonel Ben Baker oo ka tirsan mas'uuliyadda ammaanka gobolka Texas ayaa sheegay in xaaladdu ay adag tahay gaar ahaan qashinka buuraha noqday ee ay sababeen daadadka taasi oo adkeynaysa hawlaha gurmadka ee la wado balse weli ay socdaan hawlaha baadigoobka dadka maqan iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helikobtarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale kooxo eey ah oo u tababaran inay dadka la yahay helaan. hay-adaha mas'uulka ka ah badbaadada dadka ayaa waxay sheegeen in ay dib u dhigi doonaan su'aalaha la xiriira digniinaha saadaasha hawada iyo sababaha qaar ka mid ah xeryaha loo joogay dabaaldega xagaaga aysan dadka u daadgurayn intii lagu jiray daadadka ama ka hor arrintaasi oo la sheegayo in su'aalo badan ay ka taagan yihiin gudaha waddanka Mareykanka. waa tahay qodobkaas halkaas aynu ku dhaafno goordha waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay Gaza. maxaa ka soo baxay wadahadaladii xalay dhex maray markii labaad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu? Xamaas oo sheegtay in muqaawamadu ay tahay cidda iska leh shuruudaha iyo go'aanka xabad joojinta. Mareykanka oo Israa'iil u dhisaya xarumo militari oo cusub oo $100 milyan ay ku baxayso. intaan u gudbin wararkaasi aynu ku hakanno qadar xayeysiina. xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay £150 oo keliya halkii uu ka ahaa markii hore £240. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadaa ah kana soo shaqaynayay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda. ku soo dhawow Qaari Online. Qaari Online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka Quraanka Kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta Islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal wiig oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta. taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo. macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay. iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo
qari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada qari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonnada shaashadda kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida youtube-ka facebooka twitterka iyo telegram warbixino qoraala facalooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnam hbn oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa tahay markan waxaynu u gudbaynaa xagga washington halkaasi oo kulankii labaad 24 saac gudahood xalay ay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo booqanaya waddanka Mareykanka booqashadan waa tii saddexaad ee tani markii dib loo doortay 6 bilood gudahood madaxweynaha Mareykanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil halkaas uu ku tago waana hogaamiyaha kaliya ee ilaa hadda 3 jeer booqday aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka wadahadalladan waxay ku aadanayeen arrimaha Gaza iyo waliba xaaladda Iran iyo gobolka Bariga Dhexe laakiin waxa soo baxay warar sheegaya in ilaa hadda labada nin aysan isku afgaran qodobada ugu muhiimsan wadahadalkooda oo ah arrinta wada xaajoodka iyo xabajoojinta dagaalka Gaza aynu eegno warar kala duwan oo wakaaladaha wararku arrintan ay ka qoreen wahagaag waxa soo baxaysa faahfaahinta kulankii labaad ee xalay ay yeesheen Trump iyo Netanyahu iyadoo wadahadalladaasina ay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan bacdama labada nin aysan isku raacin wax muhiim ah oo la xiriira qodobadii ay ka wada hadleen waxa la sheegay in kulanku uu socday muddo saacad iyo bar ah warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay muujisay in uu jiro khilaaf iyo aragti kala duwan oo u dhaxaysa Trump iyo Netanyahu gaar ahaan arrimaha la xiriira ujeedooyinka ugu dambeeya ee Gaza Iran iyo guud ahaan gobolka Bariga Dhexe dhinaca kale ilo wareedi ayaa waxay xaqiijiyeen in labada dhinac isla garteen qaabka loo maareynayo gargaarka bini'aadantinimo ee heshiiska Gaza kadib ilahaasi waxay sidoo kale sheegeen in arrimaha ugu adag ee looga hadlay kulanka ay ahayd bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Gaza iyo dhamaadka dagaalka qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa ugu adag ee aan la isku raacin warbixin cusub oo ka soo baxday dhanka Israa'iil gaar ahaan wargeyska iyo Dacoot Ahronoth ayaa waxay tilmaamtay in Trump uu cadaadis saaray Netanyahu iyadoo la sheegayo cadaadiskan inuu ku wajahan yahay xabajoojin degdeg ah oo laga hirgeliyay marka Gaza oo si hadalka loo yiri wargeysku waxa taasi oo ku daray in Netanyahu kulankaasi oo ka baxay iyadoo aysan soo bixin wax bayaan ah oo labada dhinac ay soo saareen kulanka ka dhacay xafiiska Oval ayaa waxa la sheegayaa in si weyn diiradda loogu saaray arrimaha ugu waaweyn ee gobolka Bariga Dhexe telefishinka Sky News ee Britain ka soo laga leeyahay ayaa sidoo kale waxa uu ka soo xigtay ilo wareediye u dhawada xaajoodka in Trump uu damacsanaa inuu cadaadis ku kordhiyo Netanyahu gaar ahaan dagaalka in la dhameeyo sarkaal Mareykan oo arrimahan ka hadlay ayaa waxa uu yiri cadaadiska Mareykanku waxa uu bilowday xalay waana mid xoogan sidoo kale wuxuu xaqiijiyay in ay jiraan culays dhanka diblomaasiyadda oo arrintan ku wajahan Netanyahu isagu mar kale wuxuu ku celiyay diidmada Israa'iil ee la ah in la dhiso dawlad Falastiiniintu ay leeyihiin oo madax bannaan isagoo carabka ku adkeeyay in Israa'iil mar walba ay ilaalin doonto xakamaynta amniga Mareykanka Gaza ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si kooban waxa uu ga hadlay kulankii xalay uu la yeeshay Trump waxaanu ku nuuxnuuxsaday inay diiradda saareen dadaalada lagu doonayo in lagu sii daayo maxaabiista lagu haysta gudaha Gaza isagoo carabka ku adkeeyay inuusan ka harayn waxa ugu yeeray burburinta awoodda military iyo maamul ee Hamas Netanyahu waxa intaasi ku daray in isaga iyo Trump sidoo kale ay ka wada hadleen saamaynta guusha weyn waxa ugu yeeray ee laga gaaray Iran iyo fursadaha dhanka istiraatiijiyadda iyo siyaasadeed ee sida hadalku u yiri guushaasi ay keeni karto tani waa booqashadii saddexaad ee Netanyahu uu ku tago Mareykanka tan iyo markii Trump dib loo doortay 20 bishii January xilka uu la wareegay haddaba waxa kaloo soo baxaysa jawaab adag oo dhanka Hamas ka imaanaysa oo la xiriirta hadallada Netanyahu ka soo yeeray aynu eegno warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga ururka Hamas ayaa si buuxda waxa uu sheegay in hadallada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee uu ku sheegtay
in go'aanka sii deynta maxaabiista ay ku xiran tahay guusha Israa'iil iyo isdhiibista Gaza ay ka turjumayaan malawaalka guuldarrada dhanka siyaasadda iyo tan maskaxeed ee Netanyahu haysta. waxaan ururku ku adkaystay in sii deynta maxaabiistu ay ku imaan karto oo keliya heshiis shuruudihiisa ay qoraan iska caabinta. Izaat al-Rishqi oo ah mas'uul sare oo ka tirsan ururka Xamaas ayaa qoraal u soo dhigay barta Telegramka wuxuu ku yiri kadib markii hogaamiyaasha cadowgu ay qireen fashilkooda xun ee ku aadan soo celinta maxaabiistooda intii lagu guda jiray howlgallada military waxaa caddaatay inaanay jirin waddo kale oo lagu sii deyn karo maxaabiista marka laga reebo heshiis dhab ah oo lala galo iska caabinta. al-Rishqi oo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri Gaza ma isi dhibi doonto muqaawamada ayaana ah buu yiri cidda miiska saari doonta shuruudaha sidii ay horeba u dejiyeen xisaabaadka dagaalka. halkaas marka waxa ka cad Xamaas inay taagan tahay wax la yiraahdo isdhiibid ma jirto. Netanyahu wuxuu ku jiraa mala awaal iyo riyo. waa hagaag intaan u gudbin warbixinta la xiriirta saldhigyada Mareykanka oo ka dhisayo Israa'iil oo ay ku baxayso $100 milyan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay Gaza. waxaa lagu soo warramayaa Israa'iil saakay inay wado duqeymo iyadoo ilaa iyo hadda la sheegay dad ku dhow 20 qof ee duqeymahaasi ay ku dhinteen meelo kala duwan oo kamid ah Mareykanka. Gaza ayaa duqeymuhu ay ka socdaan. dhinaca kale waxa ay soo taraya xaaladda dhanka bini'aadantinimada ee laga dayrinayo iyadoo cisbitaalada gaar ahaan cisbitaalka Daara Balax oo kamid ah cisbitaalada farakutiriska ee shaqeynaya la sheegay in shidaalka gabaabsi uu ku yahay. habeennimadii xalayna saacada kamid ah shaqada ayaa waxa la sheegay in matooradu ay dimaan sababtuna ay tahay koronto la'aan. dhinaca kale waxa laga dayrinayaa xaalado nafaqa darro iyo cudurro laga soo warinayo Mareykanka Gaza. waa tahay xubinta ugu dambaysa ee barnaamijka waxaynu ku eegaynaa Mareykanka oo saldhigyo military iyo xarumo ciidan Israa'iil u dhisaya $100 milyan ayaa ku baxaysa. tani waxaa lagu macneeyay inay qayb ka tahay gargaarka military ee Mareykanka uu siiyo sanad kasta Israa'iil. warbixin amurahan ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh. warbixin uu daabacay wargeyska Haratis ayaa sheegaysa in Mareykanku uu ku tala jiro in uu Israa'iil u dhiso kaabayaal military kuwaasi oo loogu talagalay diyaaradaha shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka iyo helikobtarada, xarun cusub oo loogu talagalay guutada ciidamada badda iyo mashruucyo kale oo dhismooyin badan ah oo qiimahoodu uu gaarayo malaayiin dollar. wargeyska ayaa soo xigtay dukumiintiyo rasmi ah oo uu faafiyey taliska injineerada ee ciidanka Mareykanka waxaana lagu xusay in mashruucan lagu maalgelinayo malaayiin dollar oo gargaar amni ah oo la siinayo Israa'iil waxa ay sanad walba ay ka heshaa Mareykanka 3.8 bilyan oo gargaar military ah oo loogu talagalay qalab iyo hub kuwaasi oo ogeysiisada qandaraasyada dhismaha ay muujinayaan ee ku dhawaad 20 mashruuc oo waaweyn oo si buuxda uga socda gudaha Israa'iil laguna maalgeliyay lacagahaasi. mashruucyadan dhismaha ah waxaa ka mid ah dhismaha xarun cusub oo loogu talagalay guutada 13aad ee ciidamada Israa'iil. mashruucyo loogu magac daray Tama 38 iyo Tama 58 sida ku xusan dukumiintiyada inkasta oo ay la xiriiraan dib u habeynta xarumaha dayactirka gaadiidka gaashaaman ee ciidamada Israa'iil sida laga soo xigtay warbixinta. dukumiintiyada iyo soo bandhigitaanka mashruucyadan uu diyaariyay taliska injineerada ciidanka Mareykanka waxaa goobaha kaliya ku xusan magacyo sir ah. marka shirkadaha lagu marti qaado kormeerka goobta dhabta ah laguma xuso qoraal ahaan ee si af ah ayaa loogu sheegaa oo kaliya. shuruudaha qandaraasyada tartanka shirkadaha waxaa si caada loogu xadiday in aan la muujin karin faafinta tilmaamaysa halka mashruucu uu ka socdo inkasta oo dukumiintiyada qandaraasyadu ay ka kooban yihiin boqolaal amaba kumanaan bog oo xambaarsan tilmaamo sax ah oo faahfaahsan oo farsamo. qaar ka mid ahayd bogaga waxay muujinayaan sida saxda ah ee halka mashruuca laga hirgelinayo iyada oo kuwa kale ay xambaarsan yihiin qariirada faahfaahsan iyo sawirro hawada laga qaaday oo muujinaya dhismayaasha iyo wadooyinka galaya goobta taasi oo si cad u muujinaysa meesha mashruucu ka socdo. taliska injineerada Mareykanku waxa uu wadaa mashruucyo fara badan oo ka socda gudaha Israa'iil. qandaraasyadaasi cusub waxaa ka mid ah dhismaha baqaaro kaydadka rasaasta ah oo laga hirgelinayo saldhigyada diyaaradaha ee Hetzrim iyada oo mashruucu uu ku kacayo $100 milyan. aaga degdega laga dhigayo amaba laga qaado rasaasta iyo walxaha qarxa oo ku kacayo $10 milyan.
kaabayaasha loogu talagalay 12 helikobter taasi oo ku jirto ee burburka ee dhismayaal hore oo dib loo dayactirayo dhismayaal 2 hangar ah baqaaro iyo goobaha baabuurta la dhigo oo ku yaala saldhigga Telnov iyada oo qiimuhu uu gaarayo 250 milyan oo dollar xarumo dayactir gaadiid culus oo laga hirgelinayo saldhigyo kala duwan qiimahooduna uu gaarayo ilaa iyo 100 milyan oo dollar tani ma ahan markii ugu horeysay ee taliska injineerada ee Mareykanku uu si toos ah oo u dhiso xarumo gudaha Israa'iil sanadkii 2012 waxaa la sheegay in Mareykanku uu dhisay xarun sir ah oo dhulka hoostiisa oo loo yaqaano Side 911 taasi oo loogu talagalay adeegsiga ciidamada cirka ee Israa'iil qiimaha mashruuca ayaa waxa uu ku kacaya 10 milyan oo dollar iyada oo dokumentiyada mashruuca oo si dadban oo online ka ah loo helay ay muujinayaan in mashruucu uu yahay mid weyn oo ka socda saldhigga Nevatim kaasi oo ah xarun iskaashi oo u ah Mareykanka iyo Israa'iil. Maxamed Cabdiraxmaan HBN waatahay maxamed cabdiraxmaan sheekh aad buu mahadsan yahay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo ku soo dhawow shirkadda dhismaha casriga ah ee Golden Country Apartments daaxaadda waaftoo dibadaha maraysay hadda soo deg meeshii dalxiis ku ahaan lay qalbiguna ku degila daartaas ifayso dadku wada jeclaadeen mardocdaada ka carbuuno shirkadda dhismaha guryaha ee Golden Country Apartments waxa ay Nairobi kugu diyaarisay dhismo casri ah oo hadda shaqada lagu wado kaasoo ka kooban dhammaan adeegyada xaafad casri ah looga baahnaa lacagta 24 bilood ayaad ku bixin kartaa haddii aad doonto waa 2 qol 3 qol iyo 4 qol iyo qolka shaqaalaha waxaana uu ku yaalaa xaafadda South Sea wadada Mohoho Avenue kala xiriir ciwaanada iyo adreeska kale ee shaashada kaaga muuqda dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shariicada islaamka qaybaheeda kala duwan waxa loogu bishaaraynayaa in macadka Ibnu Cabbaas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxaana kamid ah culuumta shariicada oo ilaa 6 qaybooda barashada af Soomaaliga iyo Carabiga Quraanka Kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba ka sixidda carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee Quraanka wixii faahfaahin oo dheer waxaad kala xiriirtaa nambarada shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit